salaadu waa waajib jamaaca inaad ku gudataa baana fiican oo jamaacaadka xaadirto inaad dadka baryinna waa waajib oo aad xoogsato ummaddu inay faa'id soo saarto dheeraad inay soo saartaana waa wax loo baahan yahay haddii aynu idhaahno ummadoo dhammi ha wardido wardiga ha qaadato ha wardido haye inta ugu yare lagu noolaan karo un markaad soo qabato fadhiiso oo dadku marka ayuu cilmiga yaan dhakhtar la baran oo yaan falag la baran oo yaan xisaab la baran oo yaan handasa la baran oo yaan chemistry la baran oo yaan physics la baran waxaasoo dhami waa adduunka faanigaa bay ku tacalluqaan haye natiijadu maxay noqonaysaa waxaa soo baxaysa ummad dhammaanteed foqora ah dhammaanteed jaahilka aan nolosha adduun say u maamusho dhammaanteed bugta oo wax daweeye aan loo haynin yacni waa dadka ku dul nool parasites baa soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxaa loo baahan yahay wuxuu weeyaan waacidu lahum mastatactum min quwatin wa min ribaat الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم بالله وكيف تعد هداد جهل يبقين وضحيه كيف تعد هداد جهل يفقر وضحيه ساشي سويدين تلي وحويا مركا نوعا هدي الله نولاده حنون كافافا يعد ويسله هلي ماي جهل كافافا يعد نلاشا هرو مرسله هلي ماي نلاشا دنبا آسميسا مسلمين تيهوري وحي عانك كوا هايه دادك نتيدا قلدنو فهمي وهل مسألة بالمسألة دا ودكتاغا وحي هايين وحصوصار دادك وغبضا وحي كلوا هايين استهلاك دادك وغير لبدا لما يسلا فهمي كريسا شغل لقبطو داد شقايو انا قونين عاجزكا وحصا سارة لكن مركا اي نقطة كروح الراحي سيجيدا وحا هايان دادك وغير يساقو مليونيرا ايو هدو هيل بيرو شيلان عنو يسورين جريار ما كاريكي اخركو اداريا اذن ما يهين وحلعان وحا يدو قعنتو دا كتشرتانا قيمة بدن السمينين انك اللبا مشكلة ماشا طالة داد بديري اخران كسعنا الدون كبا ومباهنين دباتنا ونقال كهوصنو العضي ايو ان اخرا با اللودي وطريق الدنيا رادعينينا dabeetana adduunkaanu iska birbirsanayna meelaha duulduul oo kolba siyaaxad iyo daar yar cagaaran iyo inta noloshaba inta moodo aakhiray lowday laakiin labadaba cagsigooda ay hayeen saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa hayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan le muntajiina markay noqoto conceptionna waxa hayeen dadka ugu yar juhdiga xaqiiqigiina waa ka culama alxadiis rag kamida oo waaweyn oo salafkiyaba waxay oran jireen nin kamidaba wuxuu yiri ardadiisa isagoo la dardaarmaya waryaadeen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yiri idinka waxaan idin kula talinayna xoogsadaan buuleeyay inta yartiin xoolo dhaqda waa nin muxaddisiinta waaweyn la yaqaan kamida muxaddisiintu waxay caayi jireen ninka dawladda lacag ka qaata ama se xadiiska ku xoogsada muxaddisiinta qaar baa jiray aan lacag ma haysanin dadana waxay oran jireen idin sheegmayna xadiiska idinka wax nasiiyo mooyaan marka lacag la siiyay in xadiiska sheegi jireen marka ahlul xadiiska markay ka waramayaan ragay maagaan bay ku jiraan oo yiraahdaan xadiiskoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto wala professor banay wala ustaad banay wala waxa kan banay malihi ma banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd inuu wixiisana xoogsado cidina aanay u manna sheegan marka la dawlad wala shicib wala qofna aanu u manna sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheega hadana isagoo inuu dadka u manna sheegto cilmigiisa waa aakhira iyo ajar ku helo muuminka xaq ah marka waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sareeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo hadaa see loo oranayo xoolaha badan la shaqeynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadacayna waxaynu dhisaynu laana waayo waxaynu soo saarayba waynu ama muntajiin bayna nahayn ama mustahlikiin bayna labadubana waa waxa fiicnay muntij noqo mustahlikina noqon wax soo saar waxna hay si aad nolosha u barbaariso oo horumariso westrankayn maanta joogna carruurteena islamic school baynu laana maxaynu ugu weynay ama waxbayna soo saarin oo caydaynu ugu filaatay ama wixaynu soo saaraynu liqnayo wala boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganimo waxaynu u baahanay marka noloshu say u horumarto faa'id kan baa loo baahay maalinay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu madiina yimay masaajidka dhisay saxaabadiisi wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nabigu u dirayay yaalaha yuhuud baa lahay yuhuud la booba nolosha la xoogsada lala meeshu lahaa cabdiraxmaan ibn abdulluna ala suuq wa suuq al-yahud suuq banu qaynuqaa baa la geeyay meel kale lama geeynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay cinwaankii la idibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bil aakhirah adduunku aakhirah xidhiidhku la leeyahay waa maxay xidhiidhku la leeyahay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa طريقي aakhira loo marayay haday cibaado tahay nolosha dhan buu cibaado warka xoogsiga xalaasha ay cibaadadu kamidi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu kamidi kafaafka aad noloshaada adigu dabari kartaa cibaadaday kamidtay bariyado aad iska dayso aad social wax weydiisan cibaadaday kamidtay inaad isku fillataa cibaadaday kamidtay qofka muslimkii inuu noqdo model lagu daydo cibaadaday
cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale la soo qaadanaya aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatay caydha ku nooli diinyariday ka mid tahay bal dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diinyari haddaynu inagu noqonno dadkaba dadka diinta ka hor taagan idan waxaan rabaa inaynu u fahmno waxa weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin yuu qalbigaaga geli adduunkuna ha noqdo طريق آخر lagu gaadho wallahu a'lamu billahi tawfiq. Assalamu alaykum.